koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo waaga tariya hawsha malaweeyeedhaylala hadaadidayolodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan annaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow youtube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino aniyaa kumaanaan qoofood kurbey kaafeyday kaalamaan aniyaa kumaanaan qoofood kurbey kaafeyday kaalamaan waryaada reer kalamaan dadku waa kalamaan dalkuna waa kalamaan dawladdu waa kalamaan dunidu waa kalamaane bal maxaan isu keenno mowqafkeenna mideeya goormaan ladnaanaye lugooyadiina deysaye goormaan lulanaye goormaan liibaanaye sida baaragu hayta may kalamaan karafata war middaa laftigeeda loguma midaysno isku mowqafna kama nihin warnimayahow rag bii ka sheekeeyaa la yidhi markii la midoobay unbaad sheegtaane markii la kala tegay maad sheegtaan war may balleere eebshashaag eebduduuga ku fayle halay dhalay baaragaase may uqdadii horaa ninka faagfaagda war maxay ahaa jibraan cigaal wuxuu yidhi shalay midnimada annagaa keennay maantana waa ka noqonnay marka miyaad iskaga dheganaanaysaan idinku aryaadhaha shalay inaan midowno waa ku heshiinno maantana haddaan kala tegayno inaan ku heshiinno waayo ee muggaan rabaan kuu imaaha muggaan rabana waa kaa tegaa taasu aqli maaha war waxaa la yidhi ummaddii heshiisaa waxbay heli karaysaaye haaraanka iyo beenta waa lagu hungoobaa dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaanina waa la yidhi war wali kala leeray lamadiisa weelana arta si iyo weela muwaayta sidii weelan maska eedo leere war codkiisa aan ku hadalnay cali sugulle wuxuu yidhi caana iyo nabad kowdhe colaad iyo abaar labadhe hadba kii aad cugato caadilkaa ka baridaa casiisku aqbalaya cali sugulle taas asiibay addoonka maladiisa ilaahay an weele allaha ka aqbalo war maxaa laga aqbalaa maxaase lagu aqbalaa maday kuuma ducayne warnimayahow horaa waxaa loo yidhi ummaddan maxaa kala baroo samihii baabi'iyey maxaa baratankeenii ka dhigay baafin iyo iidheh gobonnimada yaa baayacee badaha iibgeeyey cadligii maxaa baylahshee loogu rogay baadil geeddigeenna yaa baajiyo boodhka nagu reebay yaa yidhi barta ayuu ka kicin horena sii beegsan yaa yidhi qabiil baa u bilan baawar lagu faano yaa yidhi xornimo waa bilaash beesa nagu joogin ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waa laba
aan isqaadi karin oo weligood isqabanayn waa qore dabliyagaaso haddii aan la kala qarin ayaagays qarxinaye abdulow nasabagabiya kukutabtafadooyta sugniyaw inta aad ka qabataan war hooy midnimada quweeyo haye madeeyo midnimada huweeye heeska kuma jirina kuwaasna yaa eray warnimayo war ma haysaane maday isaaq wuxuu sameeyey hees la yidhaa madigweyne keele ere yaahe yaa madkadabkan kala baxnaahe intaa haddana loo raray waraadha maday hadduu yidhi madaxweyne keelle ere lafta gareen maxaa u dhihi weyseen war ma haysiine munaasabadda kowda luuliyo maanta tiyaatarkaa lagu soo gebagabeeyey madaxweyne farmaajona khudbad dheer ayuu ka jeediyey wuxuuna yidhi shacabka soomaaliyeed waa inay codkooda bixiyaan ciddii wax qabatana ay doortaan hadday dooro waayaanna eedda ayagaa qaadaayo war madaxweyne farmaajo maanta wuxuu yidhi geesiyaashii xurriyadda dhaliya 60 sano ka hor dariiqoodii ayaan ku joognaa haddana xuskoodiiyaan u taaganna aryaadaha madaxweynaha allaha ka cafiya wuxuu yidhi ummadda soomaaliyeed maanta horumar aan gaarsiinay war wallaweyney SYL amisom ma ilaalin jirina waxaa la yidhi xornimadu sidaa ma aha jidadkoo la xidha ma aha xabad la iska rida ma aha xaaji kala wareeg ma aha xaflad iyo durbaan ma aha xoolahoo la dhaca ma aha xigmad iyo aqoon wey buda waryaa buda waa la ridaa oo sheegas maagti bulernaad mal ridneha war gaboso gabaygan waad badashay markiisii hore wuxuu ahaa wada hadalku buuq weeye caalamkoona baro weeye xiisuhu bilaash weeye beerlaxawsigii weeye bahdilaad maldahan weeye war maanta madaxweynuhu wuxuu shahaada sharaf guddoonsiiyey dadkii isxilqaan ka soo shaqeeyey aadna waa ugu mahad celiyey shaqo fiican inay qaranka soomaaliyeed u qabteenna wuu sheegay waxaana ka mid ahaa dadka uu guddoonsiiyey cabdi baaruud kow maryan aadan labo ismaaciil dheere 3 abwaanguure 4 jenaraal bashiir goobe 5 iyo hay-ado badan oo kale war maanta xoog wadaniyiinta shahaada sharaf lama siina miya waxay baraha bulshada ka dhigeen ogaay war ani warsiin haaya widaado asayfuulaha ta hor dogo baaramiisanka saadi ma ere adiga fade iyana ma ertay asaya infuula asay karley ma aha wari markred may liabsana shahaada sharaf laylatina shahaada sharaf warqad la qori lay bahaytay ha wal beese wala ka duubanaay he madaxow wili buush weerkan buuxiyaad ku jirtaaye madaxweynuhu wuxuu yiri ummadda Soomaaliyeed waa isku filan tahay isku tashato madaxweynuhu hadduu yiri ummadda Soomaaliyeed waa isku filan tahay hadday isku tashato kelmadaasi waa run ee campaign maaha war intii kale madaxweynuhu sheegay ma campaign ay ahaayeen aryaadaha haddaan ka hornima waxa la weydiiyay aakhiro shaqa ma jirtaa markaasuu wuxuu yiri kolley ninna marag la'aan meel u fadhi maayo warnamiyow lanko hata hor wal yaab la baaha ito meel da tuursiin lanko kooy warsadi maray dadkaas ka dhooban wala say meel ka haayaan aan wali haayaan ma oshiyari laakiin huwa hoobad dheegda meel dheer ku tuudaa wari aryamadeeyow ilaa weligaa sabjoog iyo siyaaro joogaad ahayd aan hela taasiyada dadka doocaysade warnimayo qabar ma ogaatiin maanta waa dabaaldeg iyo xorriyadda kowda luuliyo waxaan aad ku wareertayna shaqo kuma lahan waliba Soomaali kaliya maahan 4 dal xorowday maanta oo kale war wadwaalantay Soomaaliland 26 Juun bay xorowday war 18 May ma ilowdeen war Djibouti 27 Juun ay xorowday war waagi xorriyadda Soomaalidu waxay u dagaalamaysay 5 Soomaaliyeed Soomaali weyn 4 uu sheegay ninkaani xagee ka keenay aryaada hadda ka hornima yiri 5 Soomaaliyeed ha noolaad igaara u jawaaba asoo yiri shaqfir unka jawaaba 9 ee xaad shan nooga dhige war midkaan dhaay hadda 4 dal xorowday ayaaba lamid ah annagoo 6 maamul goboleed muxuu 4 noogu celinayaa buda afar ishan illi lema in guureegtan unuba 9 war 4.5 laga ma hadlayo in gaar qabo war dad ka dhacsan baatii nolosha adduunyada aniga international bank hadlaya alla ilaahay raadiyo national bank sooniga shima igu dambayso war wali waad ka dhacsantihiin 4 dal ee maanta kala xorowday aan idin tiriyana dhageysta Soomaaliya kowdaha Burundi laba dhaha Rwanda 3 dhaha iyo Canada marka nimayo muwaadiniinta Soomaali Kanadiyaanka laba jeer baan leeyahay happy independence independence ma wax kale ku warantaad weeyda war ma haysiin maanta Somaliland sideeda oo kala wadan aan la aqoonsanayn oo Taiwan la yiraahdo ayay heshiis la saxiixatay waxayna ku heshiiyeen hadii la aqoonsan diiday inay ayaga is aqoonsadaan war Taiwan iyo Somaliland xuduud ma leeyihiin war Taiwan adduunka oo dhan wuu garanayaa wax soo saarkeedana maca Soomaaliya lagu isticmaalaa war ma waxay ku heshiiyeen wada jir bay laba gacmood wax ku qaban karaan waxay ku heshiiyeen
aan wada soconno walaalayaal is-aqoonsanno walaalayaal war waxaan u malaynayaa taywaan inay dhaheen warwar ma haysiine madaxweyne axmed madoobe wuxuu yidhi shirka madaxweyne farmaajo ku baaqay ka qaybgeli maayo ma uu yidhi gadaan gacanta dawladda ka soo dhigaynaa miyuu yidhi war ma somalilan buu ictiraaf war bo'aalan tegaynaa ma yidhi war kenya xiriir ku jara miyuu yidhi war taas ma dhihi kare warka naga dhegaysta waayahe uhaaligaani musey uhuru ma uu yidhi wuxuu yidhi muqdisho matalaadeeda iyo maqaamkeeda dadka u doodaya anaa ka mid ah laakiin midda hadda baarlamaanku sameeyey ma oggolaanayna ha laga foojignaado ayuu yidhi aryaadaha minow muqdisho wuxuu oggol yahay haddii wax la siiye wuxuu u diidaa minow daacad qabo war madaxweynaha puntland deni wuxuu yidhi muqdisho matalaadda cid siin karta ma lah axmed madoobena waa ka daba dhahay war taas maxaad ula yaabe matalaadda muqdisho sheekh shariifba waa ka aamusay war maxaa ula yaabaysa cabdiraxmaan cabdishakuurba wuxuu yidhi matalaadaan yeeli mayno sababtoo ah arrin kale ku hoos qarsoon war cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan kula talinayaa inuu shib dhaho sababtoo ah dhiggiisii etoobiya jawaar maxamed jeelkaa la dhigay war madaxweynihii hore puntland cabdiweligaas wuxuu yidhi soomaaliya waxay u baahan tahay madax awood leh oo soomaalidu xoog iskula haysa war dawlad soomaaliya xoog ku maamusha haddii la helo puntlandna laga bilaaba miyuusan ogeyn war puntland maxaa looga bilaabayaa galmudugaa ka horrayse war somalilan waa qaran madax bannaan xoogna laguma maquunin karo waaye mahir shabeel iyo koonfur galbeedaa loo socdaa war jubbaland maxaa lu dhaafeeyada aryaadaha idinkoon istaalin waxaa hore loo yidhi garsaala halba goof ku yaal ninkiisuu geeya waa gardha garsaala halba goof ku yaal ninkiisuu geeya waa gardha aye cabdullow garsaalo midba goof ku yaal miyaa arrinta soomaaliya kuula ekaatay yaxaa kalood ku tilmaami lahayd nin walba iyo gobolkiisii taga waa kan faagahaye waryaa federaal ciddii keentay ayaa dhibaatada soomaaliya ka shaqaysay oo nin walba tiri madaxweynea tahay madaxweynaha geedland intuu jiro garsaaro midba goof ku yaal waan nahay war lamagaasluhaad wal inis jeeyey ha hoob haljoole fadaw guddoomiyaal halku weeloynimanta goorba waaraad guddoomiye ku sheegi kartaa mugga ar madaxweynaha galmudug guddoomiye ku sheeg haddaad nin ragata waryaa madaxweynaha puntland oo hooyadii federaalka madaxweynaha ka ah miyaad guddoomiye dhihi kartaa waryaa madaxweynaalkiidana koonfur galbeeda guddoomiye ka sheegi kartaana wirir tirir waryaa madaxweynaha somalilan shacabku soo doortay miyaad rabtaa inaad tiraadi waa guddoomiye adeer aabba waa xanuunsan yahay allaha caafiyo dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabbe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku idhi allaha u naxariistaan anna ku idhi maxaa ka wadaa dhakhtar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha haa ee haddana faylka dheer loo gelayey sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine 10 dhiig 10 dheecaan kumbiyuutar raajo iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayay sow maaha allayleh markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaadisan kuu sii qorayey maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabanahaye dhakhaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajinibta noo yimid iyagaa keenayo waa isku mid ay ku mahmaadaa feeri ganjeelo foorgad muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ay ka hadleen intaasaan ku soo koobaya yaana siifadina ma dheheen war hayga dhex gelin warkii cabdidhuux yuusuf gabay ayuu tiriyey wuxuuna yidhaahday inta jidadku xidhan yihiin ummadduna jarriban tahay juguhuna dhacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan huuse soconaya meel xunun buuna aadaya warkaan aniga cabdulla xalay tirinabaa ka weyn jidadkaad la xiri maayo tiri waagii lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasaan ku soo koobaynaa ayaanan sii badin waryaa maadaa dhihi karo kuweena guddoomiye war dal sagaal madaxweynena lama araga sidaa laysu dhaamo hayehe ma cumar finisheed guddoomiye ku tilmaami kartaa xee madaxweynayaasha ka reebay waryaa waa madaxweynaha nagataga madaxweyne wada arki maysiina mid ku ekaadha daawade si aanad noola meeraysan sabskribde sidoo kale si aanan annaguna kula meeraysan laygta ha nagala masuugin ku soo dhowow youtube channelkeena